munaasabadan qaaliga oo maanta aan taaganahay waa munaasabad ay isugu yeertay shirkadda biyaha ee Mahigaan dadweynaha iyo ganacsatada iyo waxgaradka reer Buurtinle taasoo ay ku gudbinayso contribution-keedii ay kaga qayb qaadan lahayd dhismaha wadada laamiga ee dhexmarta magaalada Buurtinle contribution-kaas oo runtii aan ahayn mid aad u tiro badan shirkadduna ay tahay shirkad bilow ah oo shaqadeedu aan filaya inay wax ka yar 3 bilood ama 4 bilood ay shaqaynaysay يعني waxa weeyaan wixii looga baahnaa oo shirkad looga baahnaa hadda waa la garanayaa inay qayb weyn ama kiiloomitir iyo wax la mid ah qaatay ahayd shirkadaha kalena waxaan ka rajaynaynaa sidaas oo kale inay maarta kuwa gaamuray ay qaybtooda qaataan insha Allah laakiin anagu ka shirkad ahaan Mahigaan ahaan waxaanu saaka doonaynaa inaanu guddiga horumarinta iyo dhismaha laamiga degmada Buurtinle ku wareejino adduun lacageed oo gaaraya $5,000 lacagtaas waxaan rabnaa inaan ku wareejino guddiga horumarinta iyo gudoomiyahooda odayaasha deegaanka nabadoonnada biliiska ragga akhyaarta halkan jooga dhamaantood inay goobjood ka ahaadaan inay shirkadu qoondadeedii lacageed ee loogu talagalay inay kaga qayb qaato mashruuca horumarinta degmada oo dhan $5,000 inaanu si official u wareejino maanta waa maalin anaga guddi ahaan farxad badan noo ah sababtoo ah waxa weeye waa shirkadii ugu horeysay oo codsiga ka soo jawaabta waxaan leenahay shirkadda Mahigaan ilaahay wax khayr qaba ha ugu bedelo lacagta 5,000 oo aan ku caqayimanay annagoo ku talagalayna inay tahay shirkad 3 bilood shaqaynaysay baan waxaan ugu talagalnay inay 5,000 ay noogu deeqdo ilaahay mahadi iyo isxilqaan badan oo ayagu ay sameeyeen waxaan noo suura gashay inay lacagtii saaka nagu wareejiyay 5,000 ahayd waanu kala wareegnay waxaanu leenahay ilaahay meesha ka soo baxsheen ilaahay barakaha u galiyo waxa khayr qabana ilaahay ha ugu bedelo Mahigaan ay sameysay oo kale ay noo soo hormaray insha Allah saasan karjin iyo dhamaan jaaliyadaha dibadda jira iyo kuwa ganacsatada oo dalka jooga iyo qaybaha kala duwan oo dhan oo Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland gaar ahaan Buurtinle waxaanu leenahay meel ay joogtaan arrinta ka soo qayb gala mas'uuliyiinta kambaniga Mahigaan meesha aad ka soo saareen wax khayr qala Allah idinku bedelo wax badan baad Buurtinle ka farxiseen oo biyo muddo laga qoostay aad keenteen maantana waxaad ka qayb qaadateen lacagtii lagu horumarin lahaa wadada dhexdeeda waa idinka mahadcelinaynaa waxaan u mahadcelinayaa guddiga horumarinta degmada oo had iyo goor u taagan sidii ay u dhamaystiri lahaayeen ugana dhabayn lahaayeen riyadii aanu damacsanayn oo ahayd dhismaha laamigaas saad u jeedaan waa rag wada mashquul ah xalay 6 saac iyo bar laamiga taagnaayeen waxay la shaqaynayeen cagafta shaqada wada isla markaas shir bay ka soo baxeen waxaan rabnaa guud ahaan in loo duceeyo guddigaas in ilaahay shaqadan u fududeeyo ayagana ajir xasan Allah ka siiyo waxaan u baaq u dirayaa shirkadaha magaalada ee lacagta guddigu ku qoray sida Mahigaan ay u casuntay bulshada reer Buurtinle iyo guddigu ee lacagta u baxsheen in ayagana u baxshaan waana ka rajaynaynaa inay bixin doonaan insha Allah waana ku sii adkaynaynaa aad